بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. jabtarkii nuclear physics-ka ayaan weli ku dhex jirnaa. waxaan soo qaadanay lesson 1 waxaan kusoo baranay introduction-ka hordhaca nuclear physics-ka, atomic models-ka, modelada uu soo maray atomka iyo atom structure, qaab dhismeedka atomka wuxuu ka kooban yahay, components qeybaha atomka uu ka kooban yahay, waxyaabahaas idil ayaan kasoo hadalnay. maanta waxaan qaadan doonaa insha Allah lesson 2 chapterka nuclear physics-ka cashirkiisa labaad ayaan qaadan doonaa insha Allah. waxaan ku baran doonaa nuclear mass, cufka nuclear-ka, and binding energy iyo qaabka uu isku haysto tamarta ayaan baran doonaa. marka lesson objectives hadafyada cashirka waxaa ka mid ah by the end markuu dhamaado of the lesson, cashirka markuu dhamaado the learner bartu ama ardayga should be able to, waxaa laga rabaa inuu awoodo afartan qodob. qodob koowaad waxaa la rabaa describe, ardayga inuu sheegi karo maxaa la nuclear physics-ka, iyo labo explain, inuu sharaxaad ka bixin karo nuclear energy, tamarta nuclear-ka, iyo number 3 find, inuu soo heli karo ama inuu sheegi karo wax loo yaqaan mass defect, iyo number 4 qodobka afraad u dambeeya oo ah inuu xaliyo tusaalooyinka la xiriira nuclear physics-ka. waayo cashirka ayaan guda galaynaa. nuclear physics marka guud ahaan waa waxyaabo iska kooban. waa nuclear physics-ka waa studies, waa barashada structure, qaab dhismeedka of nuclide ee nucleus-ka iyo their formation, qaabka u sameysmaan, iyo stability iyo qaabka xasiloonidooda, iyo decay iyo qaabka ay u burburaan. marka nuclear physics marka aan ka hadlayno waxaa leenahay this is the physics, waa physics-ka oo lagu barto atomic nuclide, qaabka atomka uu nucleate-ka u sameysmo, and their interaction iyo qaabka isla dhexgalaan, especially gaar ahaan in the generation qaabka u sameysmaan nuclear energy, tamarta nuclear-ka. marka intaas ayaa kusoo koobi kartaa. nuclear physics waa physics-ka ama maadada physics-ka ee la xiriira atomic nuclide-ka and their interaction, qaabka atomka u sameyso nucleus-ka iyo qaabka isla falgalaan ama isla xiriiraan waxaa loo yaqaanaa nuclear physics. waxaan kaloo ku baranaynaa waxa loo yaqaan nuclear force oo awoodda ama xooga nuclear-ka. maxaa la nuclear force waayahay. why does the nucleus remain stable? maxay nucleus-ka ee protonada iyo electronada iyo neutronada stable ay mar walba u degan yihiin and not fall apart, aysan u kala dhicin? maxay protonada iyo neutronada iyo electronada aysan u kala dadaadanin, ama protonka iyo neutronka u dhex jira bu'da gudaheeda aysan u kala dadaadanin? sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay this is because maxaa yeelay there is an attractive force, waxaa jira xoog isoo jiidanaya between u dhexeeya nucleonska, protonada iyo neutronada waxaa jiro xoog isku haya, koodkaas oo loo yaqaano nuclear force. marka nuclear force intaasaan ku definition gareynaynaa, qeexitaanka intaas aan leenahay. maxaa waaye? waa attractive force between nucleons, kuwaas isku keenaya together, macnaha stick together ay isku wada dhigaan. marka nuclear force waxaa loola jeedaa waxaan soo baranay cashirka kore waxaan kusoo baranay in nucleus uu ka kooban yahay protono iyo neutrono dhexdooda, electronkan uu ku sameeyo shalis wax loo yaqaano, uu marbo energy level uu soo dhex maro. marka protonada iyo neutronada mar walba inside gudaha maxaa ku haya? inside gudaha waxaa ku haya mar walba ay isku dayaan inay banaanka usoo baxaan, waxaa soo jiita electronada. marka protonada iyo neutronada ku jira bu'da gudaheeda waxaa soo jiidanaya wax loo yaqaan electronada. marka sidaas dan marka attractive force halkaas waxaa ka jira xoog isjiidata, xoog isoo jiidanaya, xooggaas waxaa loo yaqaan nuclear force oo mar walba protonada iyo neutronada ku ilaaliya inside the nucleus, bu'da gudaheeda ku ilaaliya si aysan banaanka usoo bixin, aysan u kala daadanin. sidaas ayaa waxaa loo yaqaan nuclear force. nuclear force marka waxaa dhihi karnaa sidoo kale waa is the force, waa xooga. nuclear force waxaan kaloo u bixin karnaa nuclear force waxaan kaloo leenahay waa is the force, xooga between u dhexeeya two or more nucleons. nucleonsna waan soo baranay, waa proton iyo neutron la isku daray waxaa loo yaqaanaa nucleons. waa protons plus neutrons waxaa loo yaqaanaa nucleons. marka nuclear force waa xoog isku haya protonada iyo neutronada si aysan u kala daadanin. weli waxaan sii micneyn karnaa, waxaa kaloo dhihi karnaa nuclear force-ga waa an attractive force, waa xoog isoo jiita that acts between nuclear particles, taasoo u dhexeeya partikelada nuclear-ka. micnaheedu protonada iyo neutronada gudaha ku jiray iyo electronka banaanka yaala ayaa waxay sameynayaan attractive force isoo jiitaan. ileen hore waxaan usoo baranay form 3-gada waxaa lagu bartaa wax loo yaqaano electric force. electric force waa maxay? marka waa xoog isku keena ama xoog kala dida electric ama korontada, balaski meniska marna isku keena marna kala dida, waxaa loo yaqaana electric force. waxaana sheegay xoogaasi waxaa soo saaran in loo yaqaano coulomb is law, waa xeer coulomb. xeer coulomb muxuu ahay? attractive force-ga marna isoo jiito marna kala didaan electric force-ga ayaa waxaa loo yaqaana electric force.
marka ninkan wuxuu sheegay inuu jiraan nuclear force marka waa maxay barotoonada iyo neutronada ku dhex jira inside the nucleuska iyo shellska electronka sameeya shellska ama energy levelka mara ayaa waxa ka dhaxeeya attractive force marka saas daraadeed marka barotoonada neutronada waxa gudaha ku ilaaliya waxa loo yaqaanaa nuclear force ayaa loo yaqaanaa kuwaas oo marka close together isku dhiga sida barotoonada iyo neutron ku dhex jira nucleuska gudaheeda. It's responsible nuclear force wuxuu mas'uul ka yahay marka for binding inay isku dhigaan ama inay isku saaraan barotoonada iyo neutronada into atomic nuclei si uu sameeyo marka atom nuclei si uu soo saaraan. waayahay marka maxaa la binding energy marka hadda waxaan soo baran nuclear force waxa loo nuclear force waxaan ku sheegnay waa awood ama xoog isku haya barotoonada iyo neutronada iyo macnaha mar walba inay gudaha isku sii xanibnaadaan si aysan u kala daadanin fail apart si aysan u kala dhicin waxa isku hayaan nuclear force-ga marka waxa kale oo jira waxa loo yaqaan markay sameeyaan radiations markay soo baxaan barotoonada ama neutronada markay ka soo baxayaan nuclear gudihiisa barotoonka markuu soo baxayo waxa sameeyay waxa loo yaqaan binding energy markaan soo koobno waxa loo yaqaanaa binding energy waxa loo yaqaanaa tusaale oo kale shayga markuu oo macnaha uu sameynayo shay markuu shay kale uu tuurayo marka shaygaas kale la tuurayo wuxuu wataa energy ayuu wataa marka mar walba inside nucleus gudaha ku jira waxay markay soo baxayaan ama baroton uu soo baxayo ama neutron uu soo baxayo waxay sameeyaan macnaha waa la soo tuuraa tuuritaanka ay soo tuurayaan marka nucleus ay soo tuurayaan banaanka inta soo bixin markay soo tuuraan kadib waxa sameeyay nucleonis ayaa sameysma marka nucleoniska sameysma ayaa ayagana waxay wataan wax loo yaqaan energy waxa loo yaqaan binding energy ayaa loo yaqaan micnaheedu maxaa wadan soo koobno marka nucleuska buuda markii shayga uu soo tuurayo baroton ama uu soo tuurayo banaanka uu soo baxaya markay dhaqaaq sameynayaan ama walax kale ay tuurayso shayga la tuuray wuxuu wadanayaa qasab ah inuu shayga u lahaado energy tusaale oo kale adiga markaad shay dhagax oo kale markaad gacantaada aad ku hayso dhagaxa gacantaada ku hayso marka dhagax aad tuurto dhagaxan dhagax waxaad ku tuurtay energy tamar ayaad ku tuurtay isla tamarta aad ku tuurtay tamar la eg ayuuna dhagax uu wadanaya marka dhagax iyo gacantaada waa nucleuska waay uu wato marka dhagaxii aad tuurto dhagaxii waa nucleonis waay waa barotoonada iyo neutronkii baxay waay marka barotoonada neutronkii baxay oo nucleonis loo yaqaano ayagana waxay wataan wax loo yaqaano energy binding energy loo yaqaan marka tamar ay sii qaataan marka tamartii baxday iyo tamartii laga tagayna waxa u dhaxeeya wax loo yaqaan mass defect-gana waxa loo yaqaan waa farqiga u dhaxeeya nucleuskii meesha ku haray iyo nucleoniskii baxay inta u dhaxeeyo meeshaas waxa ku lumaya mass ayaa ku dhumo marka mass dhaxdaas ku dhumo waxa loo yaqaan mass defect marka binding energy waa maxay marka binding waxa loo dhahaa marka the energy tamartu must be added waa in lagu daraa tamar waa inay yeelataa nucleuska buuda to separate si loo kala sooco into it is individual nucleonis si shakhsi loo kala saaro macnaha barotoonada gooni loogu saaro neutronada gooni loogu saaro electronada gooni loogu xisaabayo ayaa waxa la sameeyaa marka waxa qasab lagu dhahay nucleus in lagu daro energy in la siiyo marka the energy tamarta that must be added lagu daro to separate si loo kala saaro the nucleons barotoonada iyo neutronada si loo kala saaro energy-ga raacaya ayaa waxa loo yaqaan binding energy marka waxa lagu dhahay nucleuska iyo nucleoniska si loo kala saaro ayaa waxa sameysma binding energy-ga mar walba shay marka shay kale uu tuurayo waxa qasaba inuu energy uu wato marka energy-ga ay wataan nucleoniska barotoonada iyo neutronada energy-ga raaca ama energy halkaas ku dhuma waxa loo yaqaan binding energy-ga marka the binding energy waxa lagu dhahay marka waa is the energy waa tamarta by which kaasoo the nucleonis barotoonada iyo neutronada are bound together haddana waxay sameeyaan nucleus ay sameeyaan nucleus isku keenaya waxa loo yaqaan barotoonada iyo neutronada oo la isku yiraahdo nucleoniska marka binding energy intaas ay ku definition gareynayna waxa kale oo dhigi karnaa binding energy-ga waxa soo saaray loo magacaabo Albert Einstein waa ninka soo saaray mar walba oo binding energy-ga uu dhacayo wuxuu sheegay binding energy mar walba uu dhacayo inuu jiro waxa loo yaqaan energy meesha uu ku sameysmaayo marka energy-ga sameysmay iyo energy-ga hore u jiray mar walba waxa energy badan midka sameysmay ayaa energy badnaanay marka Einstein ninka lagu magacaabo wuxuu soo develop gareeyay aragtida ah mar walba in matter-ka ay sameeyaan wax in isla xiriiraan can be considered matter-kan energy-gaasna waxa loo tixgeliyaa lagu dhahay marka aragtidaasi form of energy inuu yahay qaab tamareed and can be converted waxa loo bedeli karaa into other forms of energy tamara kale ayaa loo siiga bedeli karaa
marka Einstein Albert Einstein wuxuu soo saaray qaacidadan ayuu soo saaray qaacidadan waa ninka soo saaray Einstein asagoo ka faa'iideysanaya bending energy waa qaacida lagu helo bending energy-ga bending energy marka waxaa lagu helaa ida waxay kugu taagantaa waa energy waa bending energy-ga waxaa lagu helaa masskii cufkii ay yeesheen nucleoniska cufka ay sameeyeen oo lagu dhuftay speed of light xawaaraha hawada uu ku socdo oo 3 times 10 power 8 meter per second waayahay marka bending energy weli waa si definition garan karaan waxaa kaloo dhigi karnaa bending energy-ga waxaa kaloo lagu qeexi karaa intaano definition waad ku isticmaali kartaa energy marka waa faahfaahin si energy bending energy loo fahmo ayaan usoo badiyay definitionada marka energy markaa leenahay energy tamarta required loo baahan yahay to separate si loo kala saaro nucleus oo ah bu'di nucleuska ku sameysnaa si looga saaro ama loogu kala saaro individual proton iyo neutron si loogu kala saaro ayaa waxaa loo yaqaanaa bending energy-ga marka nucleus gudihi ku jiray si loogu soo saaro proton iyo neutron u sameeyaan another nucleus karse u sameeyaan ayaa waxaa loo yaqaanaa waxaa soo raaca waxaa loo yaqaanaa bending energy-ga marka qaacidada lagu helo bending energy waatana marka waxaa lagu helaa ida waxay u taagan tahay bending energy waa energy-ga waa delta waa ida waa bending energy delta change in mass oo loo yaqaan delta m oo lagu helo oo ayadana u taagan mass defect-ga mass defect-gana waa soo sheegnayo waa haddana waan arki doonaa waa inta u dhaxaysa nucleuskay hore u jiray iyo nucleoniskii sameysmay oo ah proton neutron ka koobnaa inta u dhaxayso ileen shayga mass ayuu lumiyaa marka si bending energy loo helo waa inuu meesha mass uu ku dhumaa marka masskaas dhumaya waxaa loo yaqaanaa mass defect yaa loo yaqaanaa iyo sidoo u taagan speed of light waxaana loo qaataa 3 times 10 power meter per second waayahay marka mass defect-gan waa kana mass defect isna maxaa la lahay mass defect-ga waxaa loola jeedaa waa the difference farqiga between u dhaxeeya the mass of the nucleuski cufkii masska uu lahaa iyo the sum wadarta of the masses ee cufufka ay sameeyaan nucleoniska oo loola jeedo proton iyo neutronkii baxay ayaa which it is composed of uu ka kooban yahay ayaa iskoolad waxaa loo yaqaanaa mass defect maxaa waaye tusaale anaga hore waxaan usoo baranay waxaan jirtaan dhahnay nucleuska gudaheeda waxaa ku jiro proton neutron waxaana ku dul wareega orbit ku sameeya waxa loo yaqaan electronada oo marba shells energy level ay maraan marka kan waa nucleuski waa nucleuska marka waxaa sameeyay waxa loo yaqaan bending energy-gana maxaa waaye waxay sameeyaan another nucleus kale oo ka kooban nucleonis oo ah proton neutron iyo electron ayay sameeyaan marka farqiga u dhaxeeya nucleuski hore iyo nucleuska hadda sameysmay oo loo yaqaan nucleoniska farqiga u dhaxeeyo masska halkaas ku dhuma waxaa loo yaqaanaa mass defect ilaan cufka hore u jiray waxaa ka yaraaday cuf ayaa ka baxay marka cufkii ka baxay iyo cufkii hore inta u dhaxeyso ayaa waxaa loo yaqaanaa mass defect marka mar walbo cufkii hore masskii hore ee nucleuska lahaa iyo masskii oo nucleoniskii protonada neutronada isla wada jireen ayaa waxaa u dhaxeeyo masska halkaas ku dhuma waxaa loo yaqaanaa mass defect waayahay marka the mass cufka of the atomic nucleus ee bu'da atomka is usually badana less than waa inay ka yaraataa the sum of the individual mass cufufkii kale oo ka koobnaa protonada iyo neutronada maxaa lagu dhahay mar walba nucleuska ee ka sameysma atomka ka sameysnaa waxaa qasaba inuu ka yaraado nucleoniskii oo ah protonada iyo neutronada iyo electronki shelliska sameynaya waa inuu marka labadooda mar walbo waxaa yaraanaya nucleuskii hore u jiray ayaa ka yaraado midka hadda kasoo baxo oo nucleoniska sameysmay marka calaamadan waxay u taagan tahay less than waa macnaha waxay ka yartahay waa marka waa inay labadooda uu yaraadaa midka nucleuska waa inuu yaraadaa marka waa inuu ka yaraadaa nucleoniska oo ka kooban proton iyo neutronka iyo electronki oo shelliska ku sameynaya marka the missing part the missing mass cufka halkaas ku dhuma ayaa waxaa loo yaqaanaa mass defect ayaa loo yaqaanaa and the energy equivalent energy-ga sameeyay ama ka dambeeyay in nucleuska uu lumiyo mass defect-gana waxaa loo yaqaanaa bending energy ayaa loo yaqaanaa marka mass defect-ga xitaa waxaan kaloo ku definition garan karnaa mass defect duweyd waxaa leedahay waa the difference waa farqiga u dhaxeeya the sum of the mass of the individual nucleoniska protonada iyo neutronkii sameysmay that form kaasoo sameeyay atomic nucleus cusub sameeyay iyo the mass iyo cufkii of the nucleus ee bu'da hore ugu jiray farqi u dhaxeeya ayaa waxaa loo yaqaanaa mass defect qaacidan ayaa lagu helaa mass defect-ga delta m waxay u jeedaa mass defect waxaa lagu helaa total mass of protons oo lagu daro total mass of neutrons oo laga jaray
mass of the nucleus micnaheedu waa qaacidada dad u fiirsato waa definition mass defect waxaan sheegay waxaan kusoo definition inuu yahay waa farqiga u dhaxeeya masskii sameysmay oo nucleoniska protonada iyo neutron ka koobnaa iyo masskii hore u jiray farqiga u dhaxeeya marka mass defect mar walba waxa lagu helaa mass of the nucleons oo laga jaray mass of the nucleus ama actual mass actual mass and mass of the nucleus labadaba marka labadaba ayaa mar walba kala jira mass defect marka waxa lagu helaa total mass of protons oo lagu daro total mass of neutrons oo la isku yiraahdo and mass of the nucleons waxa laga jaraa mass of the nucleus oo ama waxa loo yaqaan mass of the actual mass oo loo yaqaan loo soo gaayo ma laga jaraa marka mb da wuxuu ku tagantaa mass of the proton way ma da wuxuu taagantaa mass of the nucleus ki hore u jiray mn waxay u taagantaa mass of the neutron zadna hore u soo barnay waa number of protons n waxay u taagantaa number of neutrons marka intaanan example-ka aan guda galin nuclear physics-ka marka hore waxaan isla arkaynaa wax loo yaqaano masska cufka ee leeyihiin protonada iyo neutronada electronada ee leeyihiin ayaan halka ku baranaynaa marka halkii atomic mass unit ee loo soo gaabiyay u ama amu ayaa loo soo gaabiyay labadaba waa isku mid amu na waa loo soo gaabiyaa u na waa loo soo gaabiyaa wuxuu taagan tahay u da ama atomic mass unit ka loo soo gaabiyay amu da halkii atomic mass unit kilogramkiisa wuxuu noqonayaa 1.660540 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 27 oo kilogram waa masskiisa marka atomic mass unit unified ahaan marka loo fiiriyo wuxuu noqonayaa 1.0000 oo unified mass atomic unit ayuu noqonayaa marka halkii neutronna cufkiisa wuxuu noqonayaa halkii neutron masskiisa wuxuu noqonayaa 1.67 times 10 power minus 27 oo kilogram halka atomic mass unit kiisuna uu noqonayo 1.008664 oo unified mass atomic mass unit halkii protonna masskiisa wuxuu noqonayaa macufkiisa waa 1.67 times 10 power 27 kilogram marka proton iyo neutron labadaba markaad u fiirsato waa isku mass macnaha jajabyada ay kala duwan maayna waa 1.67 iyo 1.67 marka proton iyo neutron massaskooda waa isku mid laakiin waxay kala duwan yihiin marka loo fiiriyo masskooda markuu yahay atomic mass unit way kala duwan yihiin marka proton atomic mass unit wuxuu noqonayaa 1.007276 oo unified atomic mass unit electron labadaba buu ka yar yahay electron mar walba buu ku cuf yar yahay proton iyo neutron wuu ku cuf yar yahay electronka asaga masskiisu waa 9.10 weliba dad qaar waxay dhahaan waa cuf ma lahan laakiin asaga tir ahaan waxaa la siiyaa 9.109390 times 10 power minus 31 kilogram marka proton neutron wuu ku cuf yar yahay marka proton neutron waa isku cuf masskooda waxaa ka yar electrona ka yar asaga atomic mass unit kiisa wuxuu noqonayaa 0.0054858 unified atomic mass unit marka inta table-ka maxaa usoo qaadanay example-ka waxaa lagu shaqeyn doonaa halkii proton waa imisa masskiisa halkii neutron waa imisa masskiisa haddana halkii neutron waa maxay atomic mass unitkiisa halkii protonna waa maxay atomic mass marka table-kan waa in la xifdiyaa si example-ka loogu shaqeeyo marka determining the mass defect qaacidada lagu helo si loo soo helo mass defect-ga marka waa in shuruudahan intaan aan marnaa marka the difference waxa lagu dhahay marka si loo soo helo mass defect-ga si loo soo helo marka waa saddex shay ayaa loo baahan yahay inaan marka hore aan ogaano ama aan haysano maxaa waaye number 1 waa inaan haysnaa actual masska hore ama mass of the nucleus-ka waa inaan marka hore aan haysnaa number 2 waxaan kaloo soo saaraynaa decomposition-ka waxyaabaha uu ka kooban nucleus-ka oo ah number of protons iyo number of neutrons-kana waa inaan haysnaa number 2 number 3 waa inaan haysnaa the mass of proton iyo neutron waa mid kaad aso sheegayna mass of proton oo ahaa ku koobnaay table-kii iyo mass of neutron-ka marka saddex qodob inaan haysano waa number 1 maxaa waaye actual mass oo ah mass of the nucleus bu'da atomkeeda uu ka kooban yahay cufka uu leeyahay 1 number 2 number of protons iyo number of neutrons inaan naqaano number 3 mass of the proton iyo mass of the neutron marka saddexdaas haddaan haysano ayaan automatically waxaan soo saari karnaa mass defect-ga marka see ku helaynaa mass defect-ga marka saddexdaas waan helnay haddana waxaan u baahanahay inaan soo saarno mass defect-ga marka si aan kusoo calculation gareyn mass defect-ga waxaan sameynaynaa add up waxaan isku daraynaa mass of the each proton mass walba protonka iyo mass walba neutronka isku daraynaa
si macnaha usoo baxdo nucleuska ee u samaysmaan. kow waxaan isku dareynaa mass of proton iyo mass of neutron. lambar labo subtracti mass of neutronki iyo protonka isku darnay waxaan ka jaraynaa waxa loo yaqaano waxaan ka jaraynaa components waxyaaba uu ka koobnaa nucleuska ayaan ka jaraynaa uu ka kooban yahay atomka. marka waa isla qaacidadii waa waxa lagu faahfaahinayo waa qaacidadii mass defective. tusaale marka waxaa lagu dhahay find soo raadi find waxaa soo raadaysaa the mass defective soo raadi iyo binding energy. halkaas binding energy ka maqan inaa laba example camal qofkii u baahan mass defective isla weegan ayuu marayaa binding energy wuxuu jira week loo maro. marka labadooda marka la isku duubayana waa example aan ku arkayna. marka waxaa lagu dhahay find waxaa soo raadaysaa the mass defective and the binding energy. marka halkaas waxaa ka maqan binding energy waxaa soo raadaysaa mass defective iyo binding energy of copper 63 copper 63 waxaa rabaa mass defective iyo binding energy aan soo saarno nucleuska. if the actual mass hadii mass hore u jiray uu yahay 62.91367 oo atomic mass unit. marka ko waan haysanaa waxa loo yaqaan atomic mass unit-ki ama actual mass waan haysanaa. marka labada naga maqan maxaa naga maqan waa number of protons and neutrons iyo mass of proton iyo mass of neutron. ko intaas soo raadinaynaa kadib ayaa waxaan qaadanaynaa qaacidada oo mass defective oo ah maxaa loo helaa mass defective waxaa ku helaynaa waa total mass of protons and neutrons ki oo la isku yiraahdo nucleons ama waxaan ka jaraynaa actual mass-ka. waayo ko marka lambar ko waxaa soo raadinaynaa waxa loo yaqaan number of protons iyo neutrons ku kooban copper-ka. copper marka protonadiisa waa 29 waa atomic number-kiisa waa 29 mass number-kiisana waa 63. waayo marka ko waxaan soo raadinayaa waxa loo yaqaan number of proton iyo neutron. protonadiisa waa 29 protonada uu ku kooban yahay waa 29. waayahay waxaan kaloo soo saaraynaa waxa loo yaqaano neutronka. neutronkana waxa lagu helayaa waxay aheeday waxa lagu kala jaraa mass number-ka waxa laga jaraa atomic number-ka. marka 63 waa mass number-ka waxa ka jaraysa 29 atomic number-ka waxa ku soo baxay 34 oo neutron. marka number of proton waa 29 number of neutron-ka noo soo baxane waa 34. qodobka labaad waa maxaa loo dhigay marka qodobkii saddexaad oo ahaa mass of proton iyo mass of neutron. mar kale waxaan dhahnay si mass defective loo soo saaro lambar 1 waa inaad haysataa actual mass. actual mass-kana waa haysanaa waa 62.91367 kaas marka hore waa lagu siinaa. lambar 2 waxaa soo raadaysaa number of protons iyo number of neutrons uu ka kooban yahay elementiga. element copper mass number-kiisa waa 63 atomic number-kiisana waa 29. marka protonada waa haysanaa waa 29 maxayna maqan neutronka. neutronka waxaa ku helaysaa 63 oo laga jiro 29 waa 34. lambar 2 qodobka saddexaad oo ah mass of proton iyo mass of neutron aan soo raadinaynaa. marka mass of proton sida table-ka ku soo baranay oo atomic mass unit-kiisa waa 1.00728. mass of neutron atomic mass unit-ka neutron waa 1.00867 waay. marka maxaa sameynaysaa 29kii protonka waxaa ku dhufanaysaa mass atomic mass unit-ka number of neutron-ka 34 kan waxaa ku dhufanaysaa atomic mass unit-kiisa. marka labadood marka isku dhufato waa isku daraysaa. marka isku darto aad isku dhufato waxaa ku soo baxayso 63.590 oo atomic mass unit ah. kadib waxaan soo raadinaynaa marka waxa loo yaqaan mass defective. mass defective-na waa hore u soo baranay waa farqi u dhaxeeya nucleus hore u jiray oo laga jaray nucleus hore u jiray iyo nucleonskii oo ka koobnaa proton iyo neutron. marka hadda waxaa inoo soo baxay atomic mass unit-ka oo waxaa inoo soo baxay 63.590 waxaa ka jaraysaa actual mass-kii hore u jiray oo ah 62.91 marka guud ahaan mass defective wuxuu noqonayaa eber 5.9223 atomic mass unit ayuu noqonayaa. example marka wili wuu socdaa. waayahay marka waxaan leenahay marka atomic mass unit-kii noo soo baxay mass defective aan waxa u bedelaynaa kilogram si aan u soo raadino binding energy-ga. marka si loo soo helo binding energy-ga waxaa qasab ay leeyihiin binding energy qaacidadu wuxuu ahaa mass oo lagu dhuftay speed oo la isku wargeliyay. marka mass-ka maadaama uu yahay kilogram marka anaga mass defective hadda inoo soo baxay halbeegis wuxuu wataa atomic mass unit. marka waxaan ku qasbannahay inaan u soo bedelno wax loo yaqaano u fiirso. marka hadda mass defective maxaa inoo soo baxay waxaa inoo soo baxay 0.59223 oo atomic mass unit.
marka binding energy waxaa qasab ah in maaskiis uu noqdo kilogram. marka waxaan sameynaya tirada ku soo baxday oo ahaa waxa inoo soo baxday wax loo yaqaano waxa inoo soo baxay 0.59223 oo atomic mass unit. waxaan ku dhufanaynaa halkii atomic mass unit macnaha halkii atomic mass unit maaskiisa oo ahay muxuu ahay waa 1.67 times 10 power minus 27. waa kanaan ku dhufanaynaa. maxaan dhahnay atomic mass unitka halka atomic mass unit meeqa waaye maaskiisa waa 1.66075 oo hadii loo soo gaabo noqonayso 1.67 times 10 power 27. kaasaan ku dhufanaynaa si kilogram aan ugu bedelno. marka isku dhufano marka guud ahaan waxa inoo soo baxayso marka labadooda isku dhufano guud ahaan waxa inoo soo baxayso 9.8346 times 10 power minus 28 kilogram. kadib waxaan soo raadinayaa binding energy oo ah qodobka labaad oo nala diray binding energy-ga. marka binding energy maxaa lagu helaa? binding energy waxaa lagu helaa delta mass oo lagu dhuftay speedka loo isku wargareeyay. marka sida mar walba speedka waxa uu qaadanaysaa 2.9979 oo loo soo gaabiyay 3 times 10. waa dhigi kartaa 3 times 10 power 8 aad ku dhufanaysaa meter per second xawaaraha hawada oo macnaha ilayska hawada ilayska uu ku dhex maro xawaaraha hawada oo ilayska uu ku dhex maro aad ku dhufanaysaa. marka maxaa leedahay ida soo qaadanaysaa binding energy-ga. waxaa leedahay masska waxaad haystaa 9.346 oo lagu dhuftay 10 ku jibaaran minus 28 kilogram per nucleus. waxaan ku dhufanaynaa sida oo la isku wargareeyay. sida marka isku wargareynaysaa marka labadooda isku wargareey sida aad ku dhufato masska guud ahaan binding energy-ga wuxuu noqonayaa 8.8387 times 10 power minus 11 nucleus. marka mass defect-ga iyo binding energy-ga qaacidooyinkaas ayaa lagu helaa. marka halkaas kusoo gabagabeynayna lesson 1 cashirka koowaad aan dhaho cashirkii labaad chapterka nuclear physics aan kaga hadlayno nuclear mass and binding energy-ga. Assalamu alaikum warahmatullahi